حلو جميل فيه المواعظ والهدى أدب أصيل من كل زهر ناضر ثمر ذليل قول فصيح واضح حكم تسيل. maxaad inooga sheekaynaysaa adeer caawa waxaan idinkaga sheekaynayaa qiso dhex martay laba nin. labadaas nin midkood wuxuu ahaa mid mu'min ah oo ku qanacsan wuxuu ilaahay u qadaray, kan kalena wuxuu ahaa mid ilaahay uu u nimceeyey oo nimcadiisa garan waayey. subxaan allah, sidee u dhacda adeer? sababtoo waxa uu arkay nimcadii ilaahay oo aad ugu badatay iyo owlaad aad iyo aad u badan, wuxuuna inkiray aakhiro inay jirto. haddii ay saas tahay, nooga sheekee adeer si aanan waddadiisa u marin. waan kaaga sheekaynayaa ee si fiican u dhegayso. qisadani waxay ka dhacday dadkii annaga naga horreeyey, waxayna ahaayeen laba nin. midkood ilaahay waxa uu siiyey xoolo fara badan iyo owlaad, kan kalena ilaahay ma uusan siinin xoolo fara badan. waxaan leeyahay laba beerood oo aad u waaweyn, geedahoodana waxay soo saaraan miro aanan go'aynin. waxaan kaloo leeyahay niman i waardiyeeyo. waxaan kaloo leeyahay carruur aad u badan. walaalkaygiiyow, sidaa ma aha guusha. nolol waxaa jirta taa ka duwan. oo maxay tahay? taasi waa iimaanka iyo islaamnimada. taas ayaa ka weyn waxa aad sheegayso. adigaaba mu'min maxaad u yeelan weysay xoolahayga oo kale? maxaad u yeelan weysay carruurtayda oo kale? aniga ayaa kaa carruur badan, aniga ayaa kaa xoolo badan, laakiin aniga ayaa kaa farxad badan. ilaahaygana waan ku qanacsanahay, maadaama waxa uu i siiyey carab asaga xusayo iyo qalbi asaga ku shukrinayo. ilaahayga waa mahadsan tahay. waxaad i siisay iimaan kaamil ah, iimaankaasoo aakharo i saacidayn doono. u malayn maayo in ay beertaani iga dhammaan doonto, mana aaminsani inay aakhara jirto. waa aan ka shakisanahay inay aakhara jirto. kaba soo qaad inay jirto aakharo, waxaan heli doonaa nimcada aan ku jiro mid ka daran, maadaama uma qalmo nimcadan mid ka sii liidato. taas waa waxa ay mudan yihiin dadka taajiriinta ah. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. maxaad ka shakisan tahay inay jirto qiyaamu saaca? haa, xaggana nimco ka wanaagsan baa helayaa. haddii ay jirto, maya, jannada waxay leedahay dadka acmaasha wanaagsan sameeyo, xitaa haba ahaadeena kuwa faqiiro ah. maya, aniga saas ooma xisaabtamin. aniga wax aan istaahila ma jirto. waxaan istaahilaa oo keliya janno, maadaama ilaahay waa uu i jecel yahay. hadduusan i jeclayn, ma maalkan ayuu isiin lahaa? ilaahay waa i jecel yahay. maya, arrinka saa maaha. ma ilaahay ayaad saa ku odhanaysaa? ilaahay waa allihii ku abuuray, miyaad ku gaaloobaysaa? allihii ciid kaa abuuray, nudfana kaa abuuray. ha ku caasinin, hana u shariig yeelin. ilaahayow gaalnimo naga foge, ilaahayow gaalnimo naga foge. allihii ku siiyey nimcadan wuu naga foge, ilaahayow gaalnimo naga foge.
allihii ku siiyey nimcadan wuu awoodaa inuu kaa qaado mar labaad ee ilaahay nimcadiisa ugu mahadceli. ilaahay nimcadiisa ugu mahadceli. maya middaani ma aha mid dhammaanaysa weligeed. hadda waxaan u socdaa labadayda beerood waana ku soo raaxaysan doonaa. waxaa nimco yaallo waxaana fadhiisan doonaa geed hoostiisa waxaana xisaabin doonaa xoolahayga. maxaa yeelay aniga ayaa iskale beertaas, wax iga qaadan karana ma jiraan. mudane, beerti way gubanaysaa. sabab? say u gubanaysaa? aawa shaqaalihii, aawa raggii, wardamiya beerta, wardamiya, dabka ka damiya, war dariskaygiiyow, war iga damiya dabkan, war ii gargaara, geedkii waa u gubanayaa, gargaara, geedkii waa u gubanayaa, beertii way xumaanaysaa, dhulkiina waa uu iga baaba'ayaa. war webigan agteyda maraya biyo ka soo qaada, war damiya dabkan. ma aragtay natiijadii? ma jirto wax alla sokodii kuu gargaarayo. maanadan helin wax kuu gargaaro. ilaahay ayaa beertan iska lahaa, asaga ayaana nimcada qof ku galladaysto, asaga ayaana nimcada ciduu doona ka qaado. ilaahay u soo laabo. ilaahay carruurteydii wataa abaalmarinta lagu abaalmariyo qofkii ku gaalooba nimcada ilaahay. ilaahay wuxuu ku leeyahay qur-aankiisa: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الهدى أدب أصيل من كل زهر ناضر ثمر ذليل قول فصيح واضح حكم تسيل